Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Please welcome to our channel Osman Puncher for studying the English language, Somali language, history and vlogs. Please click the subscribe button and click the notification bell in order to receive our programs. Thank you very much. fadlan kusoo dhawow channelkeena Osman Puncher adiga oo ka heli kara barashada luqadda Englishka, Soomaaliga, taariikhooyinka qaar iyo vlogs-yadaba. Fadlan channelka subscribe leh, notification bell-kana daaro si programyadeena ay kugu soo dhacaan inshallah. aad iyo aad ayaan u mahadsantihiin. Thank you very much. wili waxaanu ku guda jirnaa horta bishii barakeysan ee Ramadaan. Ilaahay khayrkeeda hana wada waafajiyo dhamaanteena insha Allah. Marka cashirkeeni afraad waxaan ku qaadanaynaa vocabularies ama erayo. waxaan soo baranay xarfo ah shaqal iyo shibana ah. alifbeetadii aan baranay, shibana iyo shaqal aan baranay. marka waxaan rabnaa xarfihii aan soo baranay in aan hingaadi karno ama aan ku sameyn karno spelling, inaad spelling karno. haddii lagu dhaho tusaale ahaan magacaagii qof aad magacaaga u sheegtay, tusaale ahaan what's your name ayaa lagu dhahay, my name is Osman oo kala dhahde, please spell the word Osman. erayga Osman ii hingaadi ama ii isbeeli ayaa qof ku dhahay. marka haddii aadan aqoon sida loo isbeeliyo waa dhibaato. marka erayadii aan soo baranay oo ahaa shibanihii iyo shaqalkii waxay ka saacidayaan in xarfaha ku jiro magacaaga inaad hal u sheegi kartid. marka waxaan baranaynaa hadda erayo ama vocabularies ama erayadaas. marka waxaan ku baranaynaa maxaa la yiraahdaa 26 xarfood Englishka oo alifbeetadiisa ah ayaan ku baranaynaa. xaraf walibana waxaan ka soo qaadanaynaa 3 eray. 3 erayaan ka soo qaadanaynana eray kasta waxaan ku dhawaaqaynaa 3 jeer anagoo waliba isbeelinayno marka ugu dambeysa. marka waxaan rabaa inaad si fiican ila socotaan. aniga waxaan diyaar u ahaa inaan si fiican luqadda Englishka idinkugu faa'iideeyo inta ay la eg tahay aqoonteeda ama inta aan ka aqaan ilaa iyo darajada ay ka gaarsiisan tahay. marka idinka laftiina oo i daawanayo waxaa idinku waajib ah in erayadan aad xifdisaan, fahamtaan. ciddii aanan aqoonna aad videogan u share garaysaan. channelkeenana mar waliba oo u furan yahay cid waliba oo rabta inay wax barato, maskaxdeeda iyo caqligeeda iyo fikirkeeda rabto inay wax ku saa'idiso. marka haddii qofku social media uu badan yahay, laakiin in waxaan rajeynaynaa channelkeena uu ka mid noqdo social mediaha ay dadku wax ka faa'iidaan insha Allah. marka maanta waxaan soo qaadanaynaa hadalka ma rabo inaan ku dheeraado xarafka hore waxaan u soo qaadanay consonants iyo vowelski. marka wuxuu ka mid yahay vowelska, laakiin hadda waxaan u baranaa alifbeetada ahaan 26 xaraf alifbeetada oo Englishka. xarafkiisa ugu horeeya waa marka xarafkan da ah ayaan rabnaa inaan 3 eray aan ka soo qaadano. xaraf waxaa la oo kale waa xaraf. markii xarfo kale lagu daro waxay noqonayaan eraygaas marka waa inuu macno fiican lahaada. marka hadda xarafkan waxaan qaadanaynaa anagoo ka soo qaadanayno 3 eray oo uu ka bilowdo. mid walbana saasaan u wadaynaa. aan ka bilaabaynaa, b aan ku xijinaynaa, sidaasaan u wadi doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. marka xarafka ayaan ka soo qaadanaynaa. cashirkeeni waxaa inoogu bilaabanayaa afraad xarafka oo aan 3 eray ka soo qaadan doono. marka erayga ugu horeeyo aan soo qaadanayna waa apple. marka waxa waaye wuxuu ka kooban yahay, waad aragtaa 5 xaraf ayuu ka kooban yahay. marka apple wuxuu ka bilowdaa xarafka ayuu ka bilowdaa, laakiin daas hadda waxaa loo akhrinayaa apple ahaana loo akhrinayaa apple. marka waxa waaye waxaan rabnaa inaan fahmo
saddex jeer aan ku dhawaaqayaa kadibna waa hingaadin doonaa ama spelling aan ku sameynayna insha Allah. Apple, apple, apple. Okay, apple marka waxaan ku sameynaynaa spelling waa a p p l e, waa a p p l e. erayga macnihiisu waa tufaax. apple waa tufaax. apple markii la hingaadinayna sidaas loo hingaadina waa a p p l e. marka laba xaraf oo isku eg hadii la arko waa laga hormarin karaa hadaad u baahatid double. kelmadda Englishka double waa labo, marka waxa waa dhihi karnaa double p. inkastoo double p macnaheedu wuxuu taagantaa waa laba p. haddii aragto waxaa dhihi kartaa a p p l e. waa isla fahamnaa umaleynaa. apple waxaan qaadanaynaa xarafka ku xiga erayga ku xiga. waxaan qaadanaynaa erayga ku xiga apple. Okay, oo isla eedile ayaan weli ku guda jirnaa. a for apple. Okay, erayga ku xigaan qaadanaynaa. waxaan ka soo qaadanaynaa erayga ku xigo ant. ant waa quraynsho. aan ku celino saddex jeer. ant. marka kelmaddan ant waa quraynsho ama quraansho. waa mid ka mid ah xayawaanada yaryar maxaa la yiraahdaa noolaha ah. ant sawirkiisana waa ka. marka ant haddaan hingaadino ama spelling, if we try to spell the word ant, waxa waaye waa a n t. waa a n t. ant waa quraynshada. sidaasoo kale la rabo marka spellingka inaad u xifdisid. apple a p p l e. ant oo quraynshada a n t. okay, ant oo eeda jirto oo ku dhawaaq ah. ant oo isku dhawaaq yihiin eeda ah, laakiin midda eedada ah u ah ku jirto waa a u n t. dhawaaqo waa isku mid, laakiin maxay ku kala duwan yihiin? waxay ku kala duwan yihiin qoraalka ama spellingka. markii spelling lagu dhaho ay ku kala duwan yihiin. marka ant waa eedo. okay, a u n t waa eedo. ant iyadana waxa waaye waa quraynsho, waa a n t. okay, xarafkeena saddexaad markaan galno waa animal. waxa waaye maxaa la yiraahdaa waa xayawaan. animal waa xayawaan. animal waa dhihi kartaa, animal waa dhihi kartaa. maxaa yeelay two accents aa jira, laba lahjadood oo ah American accent iyo British accent. marka ha isku qasin mar walba, laakiin ogow sidaana in la dhihi karo, sidaana la dhihi karo. animal iyo animal labadaba waa dhihi kartaa. marka a for animal, a for ant, a for apple. saddexdaas xarafaan hadda ka baranaynaa marka. okay, animal sidaana loo qoraa waa xayawaan. xayawaan wuxuu doon ha ahaado, maroodi, nuuc walba xayawaanada iskugu jiraan. laakiin anagu bini aadam aan ahnay, xayawaanadu kuma jirnin. markii bini aadamka laga saaro iyo dhirta laga saaro iyo shayada materialka, wixii kale soo haro geelo, kulli waa animalis, waa xayawaan. laakiin ibni aadamku animal kama mid aha. saynisyahan ayaa wuxuu qabaa in Charles Darwin ayaa wuxuu qabaa in bini aadamku ay ka mid yihiin xayawaanada. laakiin anagu ibni aadam ayaa nala yiri waxaan ka imaanaa asal ahaan nabiyullaahi aadam. marka animal bini aadamku kama mid ah. hadduu saynisyahanka aaminsan yahay in ibni aadamku asal ahaan ay kasoo jeedaan daanyeer oo guriilo la yiraahdo, anagu waxaan nahnay ibni aadam. waxaan ka imaanay asal ahaan nabiyullaahi aadam iyo ayayden xaaba oo laga abuuray feertiisa, sida quraankeena suuratul baqara ay ku xusan tahaba. okay,
marka waxaan ku guda jirnaa cashirkeeni Englishka weli, laakiin animal markaad maqashid waa xayawaanadan kale. Okay, animal waa A-N-I-M-A-L, animal waa xayawaan. Okay, waxaan ka soo qaadanay 3 xarfood oo ah apple oo ah tufaax. Okay, ant oo ah quraansho, iyo animal oo ah xayawaan. Okay, 3dan xaraf marka waxa waaye waxaan ka soo qaadanay a. Okay, haddaan soo aadno marka xarafka ku xiga b. B ayaa ku xigto. B haddaan soo aadno b waxaan ka soo qaadanaynaa xarafka ugu horeeyo book. P for book. P-da marka waxay u taagan tahay book. Waa B-O-O-K. waa B-O-O-K. ama double waa laga hormari karaa wixii laba ah. double O-K. B-O-O-K. waa book. Dhawaaqa waa buugga. buug kasto wax laga akhristo oo isku laabmayo ayaa waxaa la yiraahdaa book. Okay, waxaan kale inta weli ku guda jirnaa xarafka b-da. erayga kale aan ka soo qaadanayna waxa weeyaan boy. waa wiil. B for boy. marka b waxay u taagnaan kartaa marka boy xarafka ugu horeeyo b ayuu ka bilowdaa. Okay, boy waa B-O-Y. waa xarfiyaa soo baranayn. waa B-O-Y. boy waa wiil. boy. Okay, boy. waxaan soo qaadanaynaa erayga ku xiga. ayaan soo qaadanaynaa waa box. waa sanduuq ama box. wax walba oo xirmaya la box. waa sanduuq ama wax waliba oo xirmaya oo box ah. box waa sanduuq ama wax walba oo xirmayo box. Okay, waa B-O-X. box waa sanduuq. marka waxaan qaadanaynaa xarafkeena ku xiga ee c-da. C markaad maqashid kelmadda c waxaa lagu dhawaaqi karaa c ayaan hor soo qaadanaynaa. xarafka ugu horeeya waa city. waa caasimad. 3 jeer aan ku dhawaaqaynaa city. markaan dhawaaqa maxaa u dambaysiinaa dha oo kale u dambaysiinaa city ayaan dhahoyaa. marka ta'na oo dambaysii kartaa. Britishka Americanka waa sida city waa dhihi kartaa. city waa C-I-T-Y. city ama city labadaba waa dhihi kartaa. waa caasimad ama magaalo. markii lagu dhaho the capital city. capital letters. hore waxaan usoo baran capital letters xarfaha waaweyn. Okay, capital city caasimada ugu weyn. the capital city of Somalia is Mogadishu. caasimada ugu weyn ee Soomaaliya waa Mogadishu. Okay, Mogadishu. Okay, marka city ayaan soo qaadanay. waa C-I-T-Y. city ama city. Okay, waa caasimad ama magaalo. my city waa dhihi kartaa adoo degan gaalkacay oo kale. my city. ama adoo degan marka oo kale ama baraabe ama maxaa la yiraahdaa meel ka mid ah oo magaalada aad degan tahay. city waa dhihi kartaa my city ama my city magaaladeeda. Okay, city. xarafka ku xigo isla xarafkan c waxaan ka soo qaadanaynaa eray kale. eraygaasna waxa waaye waa cat. marka waa makuleel ama bisad ama yaanyuur. 3daas af Soomaali buu leeyahay. makuleel, bisad, yaanyuur. marka cat waa C-A-T. cat waa C-A-T.
marna hadda siida laba dhinac baan ugu dhawaaqnay marna waxaan ugu dhawaaqnay qaab sii ah marna isla siidiyaan ka ugu dhawaaqnay kaad markii lagu dhahayo ka ahaan ugu dhawaaqnay marka sidee loo kala fahmi karaa markii xarafka siida ah marna si loogu dhawaaqayo marna loogu dhawaaqayo ka marka xarafka siida 3 jeer ayaad waxa ugu dhawaaqi kartaa si hadduu xarafka siida xarafka ku xiga hadduu noqdo I si loogu dhawaaqaa ama hadduu noqdo y waxa loogu dhawaaqayaa c ama hadduu noqdo e waxa loogu dhawaaqayaa c tusaale ahaan city hadda waa caasimad sida aya ku xigsatay c ahaana loogu dhawaaqaa markaan kaleentana waxa ugu dhawaaqeynaa c waxaan ku dareynaa y oo kale cycle waa wax wareegsan ama cycle ama cycle waa wax wareegsan y ku xigto waxaan ku dhawaaqeynaa c markaan kaleentana waxaa leenahay center waa xarun ama meel oo maxaa la dhahaa la iskugu yimaado ama xarun u ah center markii la dhaho ama cent 1 cent hal centi si oo kale ama hal centi ama 10 centi isoo diro kale marka qofkii cent marka waa sidaas loogu dhawaaqa marka centi iya ku xigsatay marka inta kale inta xarfihi kale markii lagu daraayo sida ka ahaana loogu dhawaaqa laakiin markii sida oo ku xigsado xarafka I c loogu dhawaaqa hadduu ku xigsado y c loogu dhawaaqa hadduu ku xigsado e c loogu dhawaaqa xarfaha kale haday ku xigsadaana ka oo kala loogu dhawaaqa intaasna waxaan u maleynayaa inaan isla fahmay okay waxaan hadda xarafka sida ka soo qaadanay laba xaraf oo ah city oo caasimad ah ama city iyo cat oo ah mukuleel ama bisad ama yaanyuur sida jecesha u qaado xarafka kale ka soo qaadanayna waa cow waa lo lo'du markay isku jirto waxa loo yaqaanaa lo markay kala baxdana dibi iyo sac okay cow waa lo marka cow total ahaan marka waxay isku tahay waa lo waa cow waa COW marka cashirkeeni afraad meeshaasaan kusoo afmeereynaa insha allah intii aan gudagali doono cashiradeeni xiga ama cashirkii 5aad 6aad marka waxaan hadda aad iyo aad filayaa inaad fahamteen xarafka ah a iyo b iyo c xarafkaas saddexdaas xaraf inaad fahamteen marka waxaan rajeynayaa saddexdaas xaraf haddaad fahamteen iyo erayadii aan ka soo qaadanay sidaan hadda waxaad ku baratay 9 eray a oo aad ka baratay 3 eray b oo aad ka baratay 3 eray c oo aad ka baratay 3 eray iyo erayo kale tusaale u soo qaadanay marka waxaad tahay qof 9 eray ku bartay cashirkan iyo warbixino kale marka aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan idin leeyahay mar walba channelkeena ku xirnaada subscribe noo saara like-ta iyo commentiga insha Allah intii u baahan luqadda English inay baratana la wadaaga fadlan السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.